Kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeenii ciyaaraha halka kala socota waa Cawaale Official Channel. Champions League oo la ciyaarayo maanta Thalaatha iyo kulamo xiiso badan oo dhici doona. Tababaraha PSG Pochettino oo ka doorbiday shaqada PSG inuu qabto kooxda Man United. Weeraryahanka Liverpool Sadio Mane oo shaki la gelinayo mustaqbalkiisa. Barnaamijkan oo faahfaahsan daawasho wacan saaxiibayaal. Kulamada la ciyaarayo Champions League waxaa ka mid ah Dynamo Kiev oo soo dhaweyn doonta kooxda Bayern Munich. Villarreal oo wajihi doonta kooxda Man United. Barcelona oo qaabili doonta kooxda Benfica. Young Boys oo soo dhaweyn doonta kooxda Atalanta. Lille oo wajihi doonta kooxda Salzburg. Ishbili oo martigeli doonta kooxda Wolves. Malmo oo la ciyaari doonta kooxda Zenit. Chelsea oo qaabili doonta kooxda Juventus. Kooxda Villarreal ayaa qaabilaysa kooxda Manchester United kulan ka tirsan Champions League Group Stage. Kooxda Man United ayaa u safraysa cariga wadanka Spain iyadoo 2 cisho ka hor kooxda laga eriyay tababarihii Ole Gunnar Solskjaer. Haddana waxaa ku siisimo laga dhigay Carrick oo ahaa caawiyihii Solskjaer. Man United ayaa guuldarrooyin la kulmay kulamadii ugu dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Premier League. Kooxda Villarreal ayaa dooneysa inay ka aarsato kooxda Man United kulankii hore ee kaga soo adkaatay Old Trafford. Gruubkan ayaa u muuqda mid ugu xasaasisan ilaa ciyaarta kaba dambaysa lagu kala bixi doono. United waxaa saagiyay ciyaaryahanada ka mid ah Varane, Cavani, Pogba iyo Greenwood oo Covid-19 ku dhacay. Ciyaaryahanadaas ayaa seegaya kulanka Villarreal. Villarreal waxaa ka maqan weeraryahankooda Gerard Moreno. Kooxda Blues ayaa gegedeeda Stamford Bridge kusoo dhaweyneysa marwada caajisada ee Juventus. Kooxda Thomas Tuchel ayaa kulankii hore laga soo badiyay iyagoo ku dagaalamaya booska koowaad. Kooxda Juventus ayaa 4 ciyaarood hore ee soo badisay gruubkan hogaaminaysa 12 dhibcood. Kooxda Juve ayaa 4 kulan ugu dambeeyay ee la ciyaartay kooxda Chelsea ayaa 1 kulan aan laga badin iyadoo ka badisay 2 kulan halka 2 kulan ay kusoo dhamaadeen barbardhac. Kooxda Barcelona ayaa kusoo dhaweyneysa gegedeeda Camp Nou kooxda Benfica. Xavi ayaa doonaya kooxdiisa inuu ka dhaqo ceebtii kasoo raacday kulankii hore ee lagu garaacay 3-0. Haddii Benfica ka badiso ama barbaro la gasho kooxda Barcelona waxay khatar u galaysaa inay ka hadho Champions League maadaama kulanka ugu dambeeya u tagayso kooxda Bayern Munich. Barcelona waxaa dhaawac ku seegaya ciyaaryahanada Aguero, Braithwaite, Dest iyo Ansu Fati halka Benfica uu ka maqan yahay laacibkooda Joao Mario iyo Pinho iyo Lucas. Intaa kaga nimaadno kulamada laga ciyaarayo Champions League aynu u leexano dhinaca iyo wararka kale ee kubadda cagta. Tababaraha kooxda PSG ayaa xiisaynaya inuu qabsado shaqada tababarnimo ee kooxda Man United isagoo sheegay inaanay fiicnayn in tababaro loo noqdo Messi, Neymar iyo Mbappe isagoo sheegay midka kale ka maseeraya haddii la ammaano oo ka odhanayo muu iga fiican yahay. Sidaa darteedna adagtay in ciyaartoyahano noocaas oo kale in la layliyo. Kooxda Man United ayaa iyaduna aad u xiisaynaysa Pochettino sida uu soo warinayo TV-ga Sky Sports ee ka warama kubadda cagta. Weeraryahanka Liverpool Sadio Mane ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu kooxda Liverpool ka dalbado mid la mid ah heshiiska Mohamed Salah ku doonayo inuu sii dheereeyo joogitaanka Anfield. Xiddiga reer Senegal ayaa shaki ku jira mustaqbalkiisa marka la eego in heshiiskiisu dhici doono xagaaga 2023 si la mid ah heshiiska Mohamed Salah.
Sidimen ayaa dhaliyay 9 kulan oo ciyaaray tartamada xilli ciyaareedkan, isagoo dib u helay qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee lagu bartay. Sidimen ayaa doonaya si la mid ah Mohamed Salah mushaharkiisa isagana laga dhigo 300 oo kun oo gini. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ka eegay. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe saara. Asxaabtii hore noola joogtana like iyo share noogu dara si uu barnaamijkan u gaadho asxaabta jecel ciyaaraha kubadda cagta. Mahadsanidin.